wacan daawadayaal halkan magaaladan igu hooseysa ee aragtaan ee idin muuqata waa magaalo marxalado kala duwan soo martay 9 meelood oo kala duwan ayay soo martay 9 meelood ee kala duwan ay soo martay 2 meelood oo kamid ah oo kala ah Malayko iyo soo kale goob la yiraahdo Garbacade oo halkan hadda u dhow waa lagu duqeeyay duqeymo aad u daran dhibaato badan ayaan ku soo gaadhay shacabka halkan degan hadda goobtani waa koobdii tobnaad oo magaaladani soo degto magaaladan ka hadlayo waa magaalada Garbo oo ka tirsan gobolka Nogab marxaladaha kala duwan ee soo martay hadda halka goobtan magaaladu waxay degan tahay muddo lagu qiyaaso 38 sano magaaladan Garbo weeye asalkeedu wuxuu ka dhismay magaaladaas dhowr iyo 60kii bay ka asaasantay magaalada ceelka la yiraahdo Malayka ka asaasantay magaalo fiican bay noqotay oo la yaqaano oo suuq u ah gobolkeen u ah saylid xagga xoolaha oo kala yay ahayd magaalo ma aha magac leeyahay oo iyadoo aan mataqaan muuqeedu una weyneyn ayay magaalo mataqaan ay macna lahayd baabuurta Hargeysa ka timid tajgiyo ka timid meel walba halkaas ay iman jireen magaaladiis ahayd waxa yimid jabhadihii 77kii 76kii soo baxay ayaa yimid dawladda Itoobiya yaa duqeysay magaaladii Malayka ahayd xoolo badan bay kuleysay ceelka Malayka geel cabayay geel fara badan ayay kuleysay oo waayo la fiisu yeeleen iyo baqtigiisu yeelay ayay ku duqeysay magaalada sidaa way carartay way baqdeen meel xagga ka ah koonfur bari ka ah oo muxuu ahaay la yiraahdo qalqalooc yay degtay gollo ah lagu dhuntay bay degtay halkaas muddo deganeed way soo noqdeen markii xogaa la yar waxay soo noqdeen meel hadda inaga fogeyno haarta dhinaceeda kale oo Boardley la yiraahdo ay haddana soo degtay magaala Boardley baa la yiraahdaa waa loo yaqaanaa magaala Boardley way ka soo guurtay goshan agta dabadeena oo Cashree la yiraahday soo degtay haddana intaas oo dhan dhuumashay ahayd way cararayso kuma meel wanaagsan dhabilay baa degtay haddana gol dhabilay xagga inaga ay degtay haddana carar bay ahayd intaas oo dhan alaab badan way wadatay magaaladu muuqma meel lahayn laakiin macno badan oo kale lahayd oo magaaladu xoolo badan bay lahayd baa mushtari fara badan raashin badan dhar badan adduun badan oo Hargeysa meel walba ka yimaaday lahayd waxaas ay ahayd dhugul dhabilay bay degtay way ka soo noqotay oo magaalada Garbacade oo hadda magaaladan ceelka Garba la yiraahdaa oo magaalada waxa lagu magac daray magaaladan ceelka Garba la yiraahdaa Garbana waxa magaceedu Garba weyn oo biyuhu fadhiistaan bay lahaan jirtay magaalada saas loo gartay Garbacade bay marka magaaladu degtay magaalada iyadoo aad iyo aad u qiimo badan halkaas lagu duqeeyay oo 79kii ayaa la duqeeyay mar labaad oo Malaykana markii hore ahayd markii labaadna weeyaan gobolkeena meel la duqeeyo naaba lala dhaco Garba kaliya ka jirtay iyo Malayku baa ka jirtay deegaankeena meel lala dhaco naabaal baa la dhacay waliba intaas oo ruux baa ku dhimatay ilaa 90 ruux wax dhintay iyo wax dhaawacmeen intaasna way dhimatay masiiba ku dhacday xoolihii yeelan oo dhan waa la gubay dadkii joogayna waa la gubay wax dhintay iyo wax dhaawacmay wax cararay bay noqotay haddaad aragtaa meeshii wax ka baxo geedii ma jiraan Itoobiya soo gashay way baaburtay way gubatay geedii way gubtay dhagaxii baa gubtay naabaalkii lala dhacay bay gubatay way ka carareen oo la kala tagay mushkilada ka dhacday masiiba ka dhacday way ka soo tageen meeshan oo xid ahayd magaalada hadda meesha ka soo guurtay oo banaanka ah oo xid ahaan jiray wadanka hadda uu nabad guuray arlada oo dhan xid bay ahaan jirtay wax ugu soo guureysay dhuumashay ahayd dhuumashadaas oo laga cabsanayo diyaaradaha iyo mataqaanay dadka soo socday waxay magaalada halkaas soo degtay xid bay ahaan jirtay dhabile oo xid ay ahaan jirtay kiiba mataqaanay ay deganaan jirtay ka dambe magaaladii waa loo fikiray dad injineer ay yimid waxa la magaalada sida luqluqan waxayna aan meel degno meesha magaaladan halkana la dajiyay waxa la dajiyay 1986kii ayay magaaladu halka soo degtay muddo 30 sano ilaa iyo dheeraad 30 sano ilaa 30 sano oo wax dhiman bay magaalada meeshan degan tahay islaan joogay guriga uu horeeyay laga dhiso ugaasgeelo gurigiisii buu ahaa guriga horeeyo oo meesha laga taago guriga ugaasgeelo ahaa
geediga magaaladan lagu duqeeyay hubka culus ayaa xudun u ahayd ganacsiga bulshada Nogob waxayna lahayd saylad xoolo oo meelo kala duwan laga soo iib tago taasoo sabab u ahayd aas-aaska magaalanimo ee Garbo inta ka dambeysay waa la degay waa ogtiina magaalada halkaas ay deganeed magaalada sideeda macna u lahayd xagga magac macna u lahayd xagga muuqa tuulay ahayd laakiin sida kale magac bay lahayd waxay ahayd meel xoolaad bay ahayd dadka Soomaalida ee mutaqana kililkan oo dhan baa mushtariga xoolaha ayay asal u ahayd qabiil aan u joogin muxuu ahaayay dilaal u joogin ma jirin lo iyo geel iyo ari wax walba laga gadan jiray meel saasoo kale ahayd oo degan bay ahayd iyadoo dawlad joogin waxa jirtay hadawaale inta yimideen niman Faransiis inta anoo ka nimid dir dhaw meel walaal noo dhintay niman inta yimideen halkan intuu fuulay uu aw booliski aw dawladii aw maxay waxba ma jiraan uu yiri meel magaalo 30,000 ilaa 40,000 ay ku nooshahay oo boolis lahayn oo muxuu ahaayay biyo lahayn oo leer lahayn oo wax maamul ka lahayn iyo sidoo ismaamaal yaan kor taagnay isagoo leh waan ag taagnaa halkan oo kale taagnaa taas way kala weeyay magaalada marka sideeda iyadoo dawlad lahayn ba sideedaba maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo nabadgelyada nabadkeeda iyo u fiicnaan jirtay waana la yaqeeno waxaan hadda anigu waxaan ma taariikhdeedu saasay ahayd dadka Soomaali galbeed la yiraahdo oo dhan saldhig bay ahayd xagga baac mushtariga iyo macnaha xoolaha iyo wax kale oo ahayd magaalada Garbo waxay ka mid tahay magaalooyinka sida fiican uga faa'iideystay isbeddelka nabadeed ee la helay 2018 tirsaarqeedka reer Yurub wixii ka dambeeyay hadda oo lagu jiro 2024 Garbo waxa uu soo kordhay fursado kala duwan oo ay ka mid yihiin hospitaal weyn oo laga dhisay magaalada Garbo isla markaana ay si buuxda uga faa'iideystaan bulshada ku dhaqan gobolka Nogob oo dhan magaalada Garbo waxay ku taallaa bartamaha deegaanka Soomaalida waxay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar kaga beegan tahay dhinaca koonfur 120 kilomitir sidoo kale dhinaca bari waxay kaga beegan tahay magaalada Fiiq qiyaas ahaan 170 kilomitir magaaladan sida muuqata hadda waxay sameynaysaa korriin ballaaran kaasoo ku yimiday nabadda iyo isbeddelka horumarineed ee la helay isbeddel baa yimid isbeddelkii dambe yimid khayrka la abuu yimid alxamdulillah waan nasanay magaalada way nagaatay way fiicnaatay dawladii isbitaal weyn oo caalami ah oo inay kulli wada aragteen iyo u dhistay biixareen bay u sameysay wadooyin baa hadda la waxaynayo hadda u socdo meel kale in lagu xiro la rabo magaalada marka way degan tahay way fiican tahay dawladana waxaasaan ka helay khayr Allah siiyo aad iyo aad buu mahadsanyiin isbitaal caalami oo ayada kaliya aan hayne gobolka Nogob in uu noqdo maqar uu noqdo oo makhraj uu noqdo in uu noqdo la doonayo baa laga dhisay dawladana arrintaas يا كم مثلا يدك كده ما يكون مثلاً ما كان مجالنا سيدا أي تاي هذانا نبتوي فرب بدن باي يا جيرة مجالنا وقت هذا حال مخرب كيو كل ماله الله الربي إسكارسين ماله إسكارسين مالها هذا بلاش إذا كير هات تاسو كله واحد إسكارسين ولا هذا ماله مخرب كينا ويكاتي لا بس على ويكوي مان إسكارسين ماله بيم ماله غير ماله وحبا مالها هذه أبي نبات فرب بدن وحاجة سو كلا أيه ولا هذا وكل وضح كوكتين بالله يا با marka magaalada waxay u baahan tahay dawladda u baahanay awal hore biyaha ugu daran ban aadamku iyo waxa nooli biyaha ma taqaana ku nool yahay magaalada in biyo loo galiyo leyd loo galiyo maraafiq alxayaat bay carabta tiraahdaa waxyaabaha nolosha ee laga maarmin sida leydka oo kale hadii magaalo marta tahay miyigii baa dabka shiday jiray magaaladii muxuu ahay in leyd bay u baahan tahay oo axwaalo fara badan shaqadii ay ku xiran tahay biyaha loo baahan yahay oo biyo macaan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay isgaarsiin baa loo baahan yahay oo caalamka hadda meesha maray waqtiina nin walba inuu dadkiisii Mareykan iyo Yurub iyo Australia joogo inuu la xiriir u baahan yahay loo baahan yahay isgaarsiin baan u baahannahay magaalada waxyaabaha u baahan tahay waxaas ka mid ah dawladdu way mahadsan tahay waxyaabaha qabataan waxyaabahaas ka mid ah wax badan oo ka rajaynaynaa way jiraan insha Allah taala degmada Garbo runtii waa degmooyinka qadiimiga ee deegaanka ay ka mid tahay ka golahanna degmada gobolka Nogob ay ka mid tahay xuduudahan degmooyinka gobolka Nogob ay kulli magaran buutayo xuduud leedahay marka laga reebo gobolka Jarar degmada Boqortooyada xuduud leedahay inta kale laakiin hareer horshagax dhuxun iyo saga ayaan xuduud leedahay degmadu waxay caan ku tahay ceelasha Malayko oo runtii geeluna
iyo xooluhu ay ka cabaan oo ku jalbaxaan xilliyada roobaadka iyo xilliyada kale dadkuna ay dawahan u isticmaalaan ay dawaan ku tahay iyo taariikh ahaanba iyo ceelasha kale mugweyn dhan kale dawan waxay leedahay siilid caana oo muddo badan soo shaqeynaysay ilaa 30 sano waxaan ku tahay oo gobolada Erar Shabeelle iyo Nooba looga yimaado xoolaha bartan laakiin lagu kala iibsado isbedelkii kadib 6 sano 5 sano ugu dambeysay isbedelka waxaa jirta magaalada degmada kabasho fiican baa jirto bulshada soo kabanayso dhanka horumarka iyo kobaca magaaladaba qoljoogtii hadda ka hor iyo dadkii hadda reer Galbeed hadda ka hor 5 sano 6 sano ka hor ka yaacday ka tagtay ayaa dib ugu soo noqonayo ka qayb qaadanaya dhanka horumarka iyo dhismayaasha qoljoogda dhalatay oo aan bartan kulli qaarkood ku bogaadinayno waxay ka sameeyeen hoteelo casri ah oo qaarkoodna ay dhamaadeen qaarkoodna hadda ay socdaan waxaa kale oo qoljoogda dhalatay ay fuliyeen kaalin shidaal hadda ka hor degmada kaalin shidaal meel lahayn gobolkuna si guud wax kaalin shidaal ma lahayn laakiin kaalin shidaal hadda la dhisay qoljoogda dhalatay ay fuliyeen ayaa hadda laga faa'iideystaa oo functional oo shaqeysaa waxay u adeegtaa inta badan gobolka خاصة دموينك هرشة حراري وقرب يساق يا كفاية ديستا waxaan ku sugannahay mid ka mid ah maqaaxiyaha shaaha laga cabo ee magaalada Garbo sida caadada ah ama dhaqanka u ah Soomaalidu badanaa shaaha fagaarayaal iyo maqaaxiyo ballaaran oo la isugu yimaado oo lagu cabo ay leedahay halkaas waxa la isku wadaagaa sheekooyin iyo waxyaabo fara badan taas oo dadku ay kala xog qaataan isla markaana xogaha iyo warbixinada iyo sheekooyinka cajiibka la isku wadaago shacabka reer Garbo sheekooyinkii waxay nooga sheekeeyeen magaalada Garbo dhacdooyinkii uu yaabka badnaa iyo sheekooyinka caanka ah ee Garbo ka soo jirjiray magaalada horta waxyaabaha ugu qosolka badan waxaa ka mid ah dadka markay seelada xoolaha ka xoolaha markii la keeno dadaan xoolaha iibsan karin baa jira inay meesha ka iibsadaan kolka hore u yimid la jecel daraadeed dad waxaa ka mid ah marka hadaba la yaqaano eeg lama sheegaye kolkii neefka xoolaha la iibinayo intii la lagdo oo la buurto intuu neefku ruuxu eriyanaya iibsaday oo kolka dambana caadi iska noqonaya kolku neefkiisi ka libdho kolku ka libdho inta hore laakiin ma bagadi karaba intuu neefkiisu u bilaantiisa arkay baayna uu keenay meesha waa keenay tag reeraho la yaqaano ma intay qabtaan oo lagdaan uma dhigi jireen ninka orada neefka eriyo iibsaday marka de waa rag la yaqaano xoog ma ah waa xeelad u gaar Garbo Garbo waa xeelad u gaar waxa kale oo iyada la jirta laba nin baa maqaaxi lahaa maqaaxiyaha ay lahaayeen marka shaah bay ku karin jireen nina waa magaaladan odayaasheedu ka mid yahay Ducad Fariid baa la yiraahdaa waxa marka oo gaarka waxay ahaayeen markii shaah laga cabo markii laga amaaho way ka jiran jireen wax lagdil leeyda ay ka jiran jireen intay dambaska ku ag lagdaan ee dhigi jireen orod waxba kugu maliina iska tag ii jarbay marka nin baa la fahmay kolkii dambe kolkii 2 jeer iyo 3 jeer la lagday uu iska soo noqon halkii musoo fadhiisan isagii ayagiiba ninkaas ka adkaa kolkii iska taay waxa kale oo gaar u ah shaah colob tale wax la yiraahdo Garbay gaar u ah oo markii koob shaah lagu siiyo bakeeriga kala badhkiisa oo colob ah yaa loogu dari jiray waagi horeysay colob caadi ah marka hilibka de xoolo dhaqatada ahaan Soomaaliya waagi hore taas marka iyadana gaar u ah waxa kale oo gaar u ah deegaan kulmiyay ceelashii geela xoolaha oo mugweyn iyo malayko iyo galaarobe saddexaas oo dhanac ay xooluhu cabaan oo ay Mareykanka iyo dibadda dadku uga yimaadaan halkan daba dururuq ruuxa uu ku dhacayo kolku malayka cad umaati oo kii islaantiisa 8 sano ka dhali waay malayka un buu malayka marka waxa weeye ceelkaas galaarobe iyo malayki iyo mugweyn leeyda yaa gaar u ah saddexda ceel waxay gaar u tahay Garbo baa jira oo deegaankeeda laga helaa saddexduba waa ceel geel malaykana gaar buu siiyahay dadka xanuunsado dhan buu Ilaahay ku caafiyaa oo yimaado caafimaad u soo doon waxa kale oo iyadana gaar ku tahay dhulkan dooxooyinna way leedahay
meel ila la yidhahdana waa ilaahay sibina waa ilaahay nolosha iyo ilaha dhaqaalaha Garbo waxay ku tirsan yihiin xoolaha ganacsiga yaryar iyo beeraha oo laga faa'iideysto xilli roobaadka. nolosha bulshooyinka degmada Garbo waxay ku tirsan tahay boqolkiiba 80 xoolaha ku tirsan tahay. waayo deegaankani waa deegaan xoolaha lagu dhaqdo dadka nolosha waxay ku tirsan tahay xoolo dhaqato boqolkiiba 80 barnaamijka soo haray waa beerley iyo ganacsiga yararka ay ku tirsan tahay noloshooda.